war ilmo dul fale oo meel ka yimid aan la helin oo qaarkood ay ajnabi yihiin oo dalka ayaan dadka aan aqoonin oo geedaha hadii soo istaagan xataa geed hebel aan dhihi karin adigu geedgeedaad buu taqaan maan dalka dadka uga cararayna dhamaan waa salaamantiin ciidamada iyo taliyaha xoogga iyo dhamaan inta la joogto waxaad ku salaamsanaanta islaamka assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh salaan kidib hadal badan wax tirma wixii la dheelay rag iga horeeyaa yiri ragga dambeeyana waa joogaan oo taliyaha xoogga ugu horeeya dhihi doona waxa uu ka dhahay waa laba kelmad waxaan rabaa inaan idin sheego hadda halkaan ragga ka muuqda rag waxaa ku jira aan iskala dagaal galnay meesha la yiraahdo cali foldheer deegaankooduna oo ahay ceelbaraf raggaas ma ku jiraan rag maanta yaba ceelbaraf tii kara ma idin ku jira waa deegaankii aad ku dhalateen oo aad joogteen oo aad ka soo jeedeen qof tii karta ma idin ku jirto hadda waxaa la rabaa miska cileena marka cadowga ceelbaraf aan doonayna mase ceelleera anigu ordayna marka waa inaan ceelleera aan to ceelbaraf waa inaan toon waxaad ka rabnaa biriyaan dagaalaa lagu jiraa waxaad ogaatiin shabaab waa laga adkaa waa qawaariij culimadayna noo banaysay qoftay dilaanna waa ahlu janno qofta dishaahuna waa ahlu janno maanta waa dhimo lahay kanaacaana dilaysan ku dhimayna qofaad dur isaga dhimaysa dagaal qabiilaad ku dhimaysan waa ogdahay oo haddaad qoftaad dishana ahlu naar aad ku tahay qofta ku dishana aad ku naar tegaysaa lagu dhimaan ogdahay maanta maxaa ka sharaf badan oo ka wanaagsan inaan ku dhimanno kiina loo baneeyay oo haddii auna dilana aan janna ku galaynin haddii aan dilana aan janna ku galaynin adduunka waxaa loo joogaa ma ogtahay waa la dhimaha dhammaan waxaa wanaagsan marka inaad sharaf ku dhimato war ilmo dul fale oo meel ka yimid aan la helin oo qaarkood ay ajnabi yihiin oo dalka ayaan dadka aan aqoonin oo geedaha hadii soo istaagan xataa geed hebel aan dhihi karin adigu geedgeedaad buu taqaan maan dalka dadka uga cararayna ma kuwaasan dalka dadka uga tagayda waa ilmo duurka laga soo gurbiyo la soo qaldo la soo siro waliba kuwa soo qaldo soo siro dagaalka soo diraaya niman xataa dagaal la soo galaayo ma waa niman raba inay ku gambadaan gadaal igoo jooga inay soo diraan rabo annagu laakiin waxaan u diyaarsanahay ma aha inaan dagaalka gala idinka idin laadna waliba idinka dhinac dagaalamayna wada horkacayna odayaysu raaga waa taliya xoogga dalka Soomaaliyeed dagaalkan wuxuu uga jiraa foodo hor asiga ka qayb galay waxaan xusitaa hadda ka hor dagaal isla galnaa asag aakiisa soo qaata asoo dagaalka hor oo jiri nimanka shabaab oo taqaaniin wax kale iska dhaafay nimanka qawaariis hadda kuwa idinka aad taqaaniin oo dadka deegaankan ka soo jeedaya oo dhunsano duurka galay nin xabad disho ma maqashay horta ma maqashay nin xabad disho diyaarada duqayso meel hebel diyaarada ku duqayso waa dhimay waa la maqlaa laakiin xabada ku dhacdo dagaal hebel ku dhinta hal laga maqlaa ma jiro nin marka noocaas oo ilmo mulqaayo soo diray isagoo gadaal ka taagan inaan ka cabsan anagoo idin hor taagano idin hor socono taliya xoogga nagu sareeyay mas'uuliyiinta kale ay noor socdaan inaan ka cabsano maxaa ka soo baxay wax ka soo baxay ma jiraan ilaahay ku dhaari waxaan ka karnaa cadawga iska cili karnaa waa la diyaar garoobay qabiil ahaanna waa loo diyaar garoobay dawladnimada waa loo diyaar garoobay maanta waxaa halkaan taagan ninkan waxaa la yiraahdaa liibashilo qooma qashara oo balaya kulli ciidida idin la joogay ciido qof la joogo liibashilo baqlayna ma jirto qabiil hadii la yiraahdo waa nin ka soo jeeda galmudug waa habar gidib oo ogtii maanta wuxuu halkan u taagayana waxa waa inuu annagana garab siiyo ciidamada la socda deegaanka jooga waxayna u diyaarsan yihiin maanta in meel allaale meesha idinku aad dagaalka galaysiin oo maanta aan meeshaas galnaa inuu nagala qayb qaatay diyaar u yihiin xawalla u diyaar inay nagala qayb qaataan war maanta ilaahay ku dhaarshay marka dad deegaankii waa la wada dhashay laakiin dad meesha u jeedin ka yimiday in maanta dhulka nin abgaala la waayo ama nin harta abgaala qorkiisa oo meelaha ku yeestaa ka soo baxay may wax wanaagsan ma sidaarna qoriga duurka ku jira oo aan la keenin oo goobtan idin kugu imaan anagu hadda warsangiliya ka soo shaqeynay ciisartiyan ka soo shaqeynay oo ma kari ciis waaba diyaarsanay iyagu waa rag ma ogta jidoor ku jiro diyaar garoobo hore u diyaarsanay warsangilina waa soo diyaarnay ayagana waa ka soo shaqeynay soo kale uga soo shaqeynay iyaga kale qoriyii meelaha lagu la jirjiro lagu dhudhuumaan waa soo bixina banaanka u soo saarna waa la soo bixiyay maanta qoray yaala wuxuu noo tiraa ma jiraan hadduu cabsaayo fulayana wuxuu noo tiraa ma jiraan waana nin cabsaayo ma fulaya oo wuxuu tiraa isa jirin ama nin al-shabaab ah oo nimanka u dhigaayo nimanka soo socda dhahaya hadda waxaan rabnaa ninkii ma ogtahay aan wax garan
nin fulaya dadka uba biijaa wuxuu noo tiraa ma jiraan ninkii wax ma garata meelaha ku jirana wax ma garata way laakiin nin shabaab u dhigdhigayo meelaha ku jira wuxuu noo dhaayaa ma jiraan nimanka cadawga soo socda hadda waxaan rabnaa dadkii deegaanka in la abaabulo la diyaariyo inta hadda dhulkaan maanta waxaan ka diyaarinay rag deegaanka ka mid ahayo idinka idin lamid ah dhulkaan ka diyaarin rag ciise ratay hadda ka nimidno la soo hadalnay ragan hadda inta fadhida aan ka yaraynan kula soo hadalna dhulkaan waana rag deegaankan ku dhex jiro meelaan deganay rag kale idinka horeeyo cid idinka xagaysa dhulkaas degan daraadan aadna waa ogtiin idinku hadda waxaa la idinka rabaa idinkuna inaad wixii maqana la keeno haddana waa fiicantiin rag fiican aad ku joogtiin wixii dhimanoo kale inaan keensano waxaa muhiimaddu waxay tahay inay idinkan idinka go'an tahay annagana naga go'an tahay inaan cadawga iska dulqaadno deegaanaday hadda qabsadeen oo ceelbarafaa inteeda ka jira oo ku xigo guulana inta ku xigo oo ka jiriyo deegaano kale ka mid ah waa inaad u diyaar garowdiin sida ugu dhaqsiyaha badan leh inaan dib uga soo celino deegaanadii aad iyo aad u mahadsantihiin hadalka waa dheereeyey